waxaa loo tixgeliyaa basaaskii ugu weynaa ay Yuhuuddu ka shaqaalaysiiso waddanka Suuriya. Waa basaaskii ku koray waddanka Masar. Waxa uu hay'adda Mossad ee Israa'iil u gudbiyey xogo muhiim ah, xitaa dhimashadiisa kadib la isticmaali jiray. Basaaskani waxa uu ku dhowaaday in uu madaxweyne ka noqdo waddanka Suuriya. Iska daa wax kale, waxa uu noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda difaaca Suuriya. Dagaalkii 6 cisho ee Carabta iyo Yuhuudda dhex maray, basaaskani waxa uu ahaa furihii ay guusha ku gaareen Yuhuudda. Inta aan mowduuceena bilaabin, fadlan muuqaalkan like inoo saar. Like-taadu wax badan bay inaga anfacaysaa, dhiirigelin bay noo noqonaysaa. Kuna soo biir kanaalkeena Xog Baahiye adigoo subscribe taabanaya. Basaaskan uu mowduuceena maanta ku saabsan yahay waxaa magaciisa la yiraahdaa Eli Cohen. Waxa uu dhashay sanadkii 1924. Waxa uu ku dhashay magaalada Alexandria ee waddanka Masar. Magaaladaas oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Masar. Basaaskani jinsiyadiisu waa Yuhuudi. Waxa ay ka mid ahaayeen Yuhuud badan oo ku nooleyd magaalada Alexandria. Eli Cohen dhalashadiisa ka horba, aabihiis ayaa waxa uu ka soo guuray magaalada Aleppo ee waddanka Suuriya. Waxa uuna u soo guuray magaalada Alexandria ee waddanka Masar. Waxaan halkaa ka fahmaynaa in aabihiis uu si fiican u bartay dhaqanka, luqadda iyo ganacsiga iyo diinta Islaamka iyo wax walba oo ku saabsan dadka Carbeed. Eli Cohen waxa uu waqtigiisa carruurnimo ku soo qaatay magaalada Alexandria sanadkii 1947 oo ay da'diisu ahayd 23 sano jir. Waxa uu Eli isku dayay in uu ku biiro ciidamada Masar. Waraysigii laga qaaday kadib waxaa loo sheegay in uusan u qalmin inuu noqdo askari Masaari ah. Dhammaadkii sanadka waxa uu ka tagay jaamacaddii uu dhigan jiray. Waxa uuna bilaabay inuu iskiis wax isku baro, sababtoo ah hanjabaadii eedeymo ayaa uga yimaaday Ikhwaanul Muslimiinta. Sanadkii xigay 1948 ilaa wixii ka dambeeyay oo ku beegneyd xilligii Yuhuudda xoogga ay ku qabsatay Falastiin. Dad badan oo Yuhuud oo ku noolaa waddanka Masar ayaa waxa ay ka haajireen Masar, waxa ayna aadeen dhulka iyo Falastiin. Inkastoo Eli Cohen waalidiintiisa iyo walaalihiisba ay u guureen Israa'iil, isaga waxa uu sii joogay Masar si uu u dhammaystirto howlihiisa qabyada ah iyo si uu isugu xiro Yuhuudda joogta magaalada Alexandria. Sanadkii 1961 Eli Cohen waxaa loo taxaabay xabsiga muddo kooban, waxaana la xiray markii la ogaaday inuu faraha kula jiro howlaha sahnuuniyadda ee Yuhuudda la xiriirta. Wax badan ma xirneen, isla markiiba xorriyadiis ayaa la siiyey. Eli Cohen sanadadii kontomeeyadii waxa uu aad uga qayb qaadan jiray howlgalkii lagu daabulayay Yuhuudda Masar joogta loona geynayay dhulka Falastiin ay Yuhuuddu qabsatay. Sanadkii 1955 shabakad sirdoon ee Yuhuuddu ay leeyihiin ayaa waxaa laga asaasay waddanka Masar dhexdiisa. Howlgalka ay Yuhuuddu asaaseenna waxaa lagu magacaabi jiray Susanna Operation. Qorshahoodu waxa uu ahaa isku day ay Yuhuuddu ku doonaysay in ay ku burburiyaan xiriirka ka dhexeeya Masar iyo reer Yurub. Waxa ay samayn jireen goobaha reer Yurub ay leeyihiin oo Masar ku taala ayay qarxin jireen. Yuhuuddu waxa ay bartilmaameedsanayeen xarumaha ay reer Yurub leeyihiin si xiriirka Masar iyo reer Yurub ay u dilaan. Shabakadani markasta ay weerar ku qaado xarumaha reer Yurub ay leeyihiin, reer Yurub waxay u maleynayeen in weeraradan ay ka dambeeyaan Ikhwaanul Muslimiinka, laakiin wax walba way fashilmeen. Dowladda Masar ayaa baaritaan samaysay, baaritaankaas oo ay ku ogaatay in shabakadani ay ka dambeyso weerarada lagu qaadayo xarumaha reer Yurub. Inkastoo labadii sarkaal ee ugu waaweynaa ee shabakada ka mid ahaa dil toogasho ah lagu xukumay, laakiin Eli Cohen wax dembi ah waa lagu waayay, isla markiiba waa la sii daayay. Markii Israa'iil lagu eedeeyay in howlgalka iyaga ay ka dambeeyeen, Israa'iilna warkaasi waa ay beenisay. Waxa ay sheegtay in weerarada wax lugu aysan ku lahayn. Xiriirkii Masar iyo reer Yurub ka dhexeeyayna wax dhib ah ma soo gaarin oo sidiisii buu ahaa. Dhacdadaas waxaa raacday oo xilligaas socotay xiisadii ka taagneyd kanaalka Suways, waxaana dowladdii Masar ee xilliga amartay in waddankeeda ay ka tarxiisho Yuhuud badan oo ku noolaa. Diseembar sanadkii 1956 Eli Cohen waxaa lagu khasbay in uu waddanka Masar ka baxo. Sanadkii 1957 waxaa isla xilligaaba la shaqaalaysiiyey Eli Cohen, waliba waxaa laga shaqaalaysiiyey wasaaradda difaaca ee Israa'iil. Waxa uuna ku fiicnaa turjumidda oo waxa uu yaqaanay luqado badan oo kala ah Carabiga,
Ingiriiska iyo Faransiiska. Sidaa daraaddeed, waxa uu wasaaradda ka qaban jiray jagada turjumaannimo. Eli Cohen isaga oo shaqadaa ka shaqaynaya waxa uu ku caajisay shaqadaas, waxa uuna go'aansaday in uu ku biiro wasaaradda sirdoon ee ugu weyn Israa'iil ee loo yaqaano Mossad. Hay-adda sirdoon ay Israa'iil leedahay ee Mossad isla markiiba dalabkiisa waa ay soo diiday. Markii ay soo diidayna waxa uu iska casilay shaqadii uu ka hayay wasaaradda difaaca ee Israa'iil. Labadii sano ee xigtay waxa uu Eli Cohen ka shaqaynayay xafiis shirkad caymis ah oo Tel Aviv ka shaqaynaysay. Sanadkii 1959kiina waxa uu Eli Cohen guursaday gabadhii la oran jiray Nadia Mejaldi. Nadia waxay la dhalatay qoraagii caanka ahaa ee loo yaqaanay Sami Michael. Nadia iyo Eli Cohen markii dambe waxa ay isku dhaleen 3 carruur ah oo la kala oran jiray Sofia, Erid iyo Shai. Maalin maalmaha ka mid ah, Merid Armid oo ahaa agaasimaha guud ee wakaaladda Mossad xilligaa, isaga oo doonayay sirdoon loo diro Suuriya, ayaa waxaa gacantiisa ku soo dhacday feelkii uu lahaa Eli Cohen. Inkastoo markii uu akhriyay uusan ku qancin, haddana waxa uu go'aansaday in ninkan feelkiisa la baaro. Markii la baaray kadibna waxaa loo oggolaaday inuu ka shaqeeyo hay-adda sirdoonka Mossad. Eli Cohen waxaa loo sheegay in ay Mossad aqbashay inuu ka mid noqdo basaasiinta u shaqeeya hay-adda Mossad, waxaana loo sheegay in dalabkiisii laga aqbalay. Halkaas ayuu ka bilaabay waddadii basaasnimo oo Yuhuudda ugu shaqaynayay. Isla markiiba Eli Cohen waxaa la siiyey koorso dhammaystiran. Koorsadaas oo soconaysay muddo 6 bilood ah, waxaana lagu baray wax walba oo basaaska looga baahan yahay. Waxaa la baray taatikooyinka ciidanka asaasiga u ah, waxaa kaloo la baray kitaabka Qur'aanka ah, waxaa kaloo la baray soonka, salaada iyo dhammaan waajibaadka muslimiinta lagu leeyahay. Eli Cohen diinta Islaamka wax badan ayuu ka garanayay maadaama uu ku soo koray magaalada Alexandria ee waddanka Masar. Waxaa kaloo la baray cilmu nafsiga iyo sida ugu fudud uu basaaska xog ku heli lahaa. Xogta oo helayna sidii uu ku soo gudbin lahaana waa la baray. Si aad u fudud aadna u qurux badan ayuu maskaxda ugu qabtay, maadaama Eli Cohen ahaa qof aad u maskax badan. Markuu dhammaystay koorsadii, warbixintii uu macallinkiisa soo gudbiyay waxa uu ku sheegay in Eli Cohen uu soo buuxiyey dhammaan shuruudihii looga baahnaa diyaarinta basaaska, diyaarna u yahay in howlgal loo qorsheeyo. Waxaa isla markiiba loo sameeyey aqoonsi been abuur ah oo Suuriyaan ah, waxaana laga dhigay ganacsade Suuriyaan ah oo ku noolaa qurbaha, si aan loo dareemin hagardaamada uu soo wado. Qorshahooda si uu u dhammaystirmo, waxaa loo sheegay in uu aado dalka Argentiin, isla markaana uu iska dhigo ganacsade Suuriyaan ah oo muddo ku noolaa dalka Argentiin, doonayana in uu dalkiisa ku laabto. Tani waa qorshe ay dejiyeen khubarada sirdoonka ee Mossad. Qorshahaasna lacag aad u badan iyo maskaxba way ku baxday. Eli Cohen markii uu Argentiin tagayay, waxaa kaga horeysay basaasiin kale oo Mossad u shaqaysa. Basaasiintaas ayaa u fududeysay sidii uu ku imaan lahaa waddanka Argentiin. Eli Cohen markii uu Argentiin yimaaday, waxa uu isticmaalay xeelado cajiib ah. Xeeladahaasoo ah in xiriir fiican uu la yeeshay siyaasiyiin maqaam sare leh, saraakiil ciidan iyo bulshada Suuriyaanka ah ee waddanka Argentiin ku nool. Waxa uu badanaa tagi jiray meelaha fadhi ku dirirka ah, halkaasoo waqtigiisa ugu badan ku qaadan jiray. Waliba waxa uu ka agdhowaan jiray dadka Suuriyaanka ah si xogo badan uu uga ogaado dowladda Suuriya, iyo in uu si fiican u barto dhaqanka Suuriyaanka ah iyo qaabkay u kaftamaan. Eli Cohen waxa uu xafladaha ku qaban jiray gurigiisa si uu kalsooni buuxda uga helo dadka Suuriyaanka ah. In uu xafladaha ku ballamiyo dumarka jirkooda ka ganacsada madaxda Suuriyaanka ahna halkaas ayay waqti badan ku qaadan jireen. Waxaa debinkaa ku dhacay wasiiro, ganacsato iyo dad ka soo jeeda Suuriya. Waxa uuna ka duubi jiray muuqaalo qarsoodi ah. Basaaskan Yuhuudiga ah iskana dhigaya Suuriyaanka, Eli Cohen waxa uu kasbaday jacaylka dad badan oo Suuriyaan ah, gaar ahaan madaxda Suuriyaanka ah ee joogta waddanka Argentiin. Xafladaha uu qaban jiray si xor ah ayaa la isugu wareysan jiray, waxaana halkaa lagu gorfayn jiray oo lagu falanqayn jiray siyaasadda Suuriya iyo wixii cusub ee la helo. Eli Cohen xafladaha gurigiisa uu ku qaban jiray markii uu ka soo agdhawaado madaxda Suuriyaanka ah,
waxa uu iska dhigi jiray qof sarkhaansan oo khamro iska badiyey, laakiin taasi waa matalaad. Waxa uu si fiican uga bogan jiray hadallada ka soo baxaya madaxda Suuriyaanka ah. Markay ka faaruqaan oo ay ka tagaan, ayuu qoran jiray. Eli Cohen waxa uu lacag siin jiray madaxda Suuriyaanka ah si uu quluubtooda u kasbado, waxa uuna iska dhigi jiray waddani dalkiisa jecel, lana garab taagan hiil iyo hoo. Eli waxaa jeclaaday dumar badan oo Suuriyaan ah, oo dhammaantood midba midda kale ay ka qurux badan tahay, waayo sida ay ayaga u arkaan. Waxa uu isku darsaday dhowr sifo ay dumarku jecel yihiin: dhalinyaranimo dhabankiisu dhalaalayo, hodantinimo ay deeqsinimo u raacdo, iyo xaas la'aan. Eli saaxiibadiisa Suuriyaanka ah waxay u sheegeen in ay ka caawin doonaan sidii uu ku tagi lahaa waddanka Suuriya. Dadka caawinayana waxaa ku jiray Amiin al-Xaafid oo markii dambe noqday madaxweynaha dalka Suuriya. Eli isaga oo isku diyaarinaya safarkiisii ugu horeeyay uu ku tagi lahaa caasimadda Dimashq, waxa uu si qarsoodi ah ugu laabtay waddanka Israa'iil. Sababta laabashadiisa waxaa la sheegaa 3 qodob. Saddexdaasi waxay kala ahaayeen: midda koowaad, in uu waqti la soo qaato reerkiisa; midda labaadna, si uu talo iyo xirfado dheeraad ah uga soo qaato xarunta dhexe ee Mossad; midda ugu dambaysana, dhimashada aabihiis oo xilligaa ku soo beegantay. Eli markii uu muddo joogay waddanka Israa'iil, waa uu ka soo ambabaxay. Waxa uu markii hore soo aaday caasimadda Roma ee dalka Talyaaniga, halkaasuu doon ka soo qaatay. Waxa uu ku sii hakaday magaalada Alexandria ee waddanka Masar, halkaasna waxa uu ka galay dalka Lubnaan. Nin deegaanka ka soo jeeday, ninkaasna waxa uu ka caawiyey sidii uu ku dhaafi lahaa sohodinta iyo xuduudda u dhaxaysa waddanka Lubnaan iyo waddanka Suuriya, isaga oo Eli Cohen uu siiyey lacag laaluush ah si ay ugu fududaato in uu galo waddanka Suuriya. Isla markii ay cagta soo dhigeen waddanka Suuriya, Eli Cohen iyo ninkii la socday ee caawinayay waxa ay si toos ah u aadeen caasimadda Dimashq ee waddanka Suuriya. Eli Cohen waxa uu Dimashq soo galay markii ugu horeysay sanadkii 1962. Xiriirkii uu la lahaa Suuriyaankii ku noolaa waddanka Argentiin ayaa wax badan ka caawiyey Eli Cohen. Xiriirkiisii ugu horeeyay waxa uu la sameeyey Amiin al-Xaafid oo ahaa madaxweynihii xilligaa Suuriya, oo inqilaab kula wareegay dalka Suuriya. Madaxweyne Amiin al-Xaafid waxa uu Eli Cohen u arkayay nin uu aqoon fiican u leeyahay, maadaama ay wada joogi jireen dalka Argentiin, waqti fiicanna ay ku wada qaateen. Martigeliye wanaagsan, ganacsado hodan ah oo doonaya in uu dalkiisa iyo dadkiisaba horumar gaarsiiyo ayaa Eli Cohen loo arkayay. Qof walba oo raba in uu basaas noqdo, waxaa muhiim ah in uu 2 sifo yeesho. Labadaas sifo waxay kala yihiin afminshaar ballanqaad badan oo bulshaawi ah, iyo lahaanshiyaha xusuus wanaagsan si ay ugu fududaato si dhib yar inuu u xusuusto wejiyada dadka iyo sheekooyinka ay isdhaafsanayaan dadka. Waxaa iska cad, qofka sifooyinka yeelanaya waa qof garaad badan. Eli Cohen waxa uu ahaa qof aad iyo aad u maskax badan. Maskax badnaantiisa waxaa ku tusaysa waxa uu gudaha u galay aqalka looga aramiyo waddanka Suuriya. Eli Cohen waxa uu ahaa beenaale daacadlamood ah, samafale dhagar badan, oo ku wanaagsan jilniinka hadba marxaladda uu rabo in uu ku qiyaamo madaxda Suuriyaanka ah. Eli Cohen waxa uu hayay dhabbadii ay u jeexeen khubradii Mossad, isagana sidii ugu wanaagsaneed ayuu kaga soo baxay. Waraaqad uu markii dambe qoray Eli waxa uu ku sheegay in uu gudaha u galay dhowr wasaaradood iyo hay-adaha waddanka ka shaqeeya. Wasaaradaha uu galay waxaa ka mid ah wasaaradda difaaca, wasaaradda isgaarsiinta, wasaaradda dhaqaalaha, wasaaradda arrimaha gudaha, iyo wuxuu gudaha u galay bangiga dhexe ee waddanka Suuriya uu leeyahay. Cajiib. Eli Cohen isagoo ay caawinayso kalsoonidii ay ku qabeen madaxdii Suuriyaanka ahayd, waxa uu awood u yeeshay in uu galo xarumaha waaweyn ee dowladda Suuriya lahayd, waxaana gacantiisa soo galay siro iyo xogo muhiim ah oo ay lahayd dowladda Suuriya. Eli waxa uu xogo ka bixiyey siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciidanka Suuriyaanka ah. Siraha uu Eli Cohen qarsoodi ugu gudbin jiray Yuhuudda waxa ay ahaayeen siro aad u badan, aadna ugu muhiimsanaa Yuhuudda. Eli Cohen siraha uu Yuhuudda u gudbin jiray
ma ahan wax lacag lagu qiimeyn karo. Yuhuuddana siraha wax badan bay ka anfacday, waana sirihii ay ku burburiyeen ciidankii Suuriyaanka ahaa. Eli Cohen isticmaalka sirihiisa intaa kaliya kuma koobneen. Xitaa markii Eli Cohen la daldalay kadib, Yuhuudda siraha way isticmaalayeen oo sanado badan bay anfacday. Xogaha uu Eli Cohen soo gudbin jiray waxa ugu qiimo badnaa howlgalladii ciidamada Suuriyaanka ahaa ay wehelinayaan ciidamo Ciraaqi ah, iyo xogo muhiim ah oo ku saabsan taageeridda Midowga Sofiyeet ee ciidanka Suuriyaanka ah, iyo aag-beddelashada ciidamada Suuriyaanka ahaa, iyo madaafiicdii waaweynaa ay ku hubeysnaayeen dusha sare ee buuraha Golan High oo xilliga gacanta ugu jirtay Suuriya. Golan High waxay ka mid tahay dhulkii ay Yuhuuddu ka qabsadeen Suuriya intii uu socday dagaalkii 60 maalmood. Sidoo kale waxa uu Eli Cohen soo gudbiyey qorshayaashii ciidanka Suuriya oo ahaa carqaladaynta biyaha webiga Jordan. Waxa ay ka mid ahayd meelaha Israa'iil ilaalada ugu badan ay ka hayso meesha. Waxaa intaa u sii dheeraa, meel walba uu booqdo waxuu ka diyaarin jiray xogo dhammaystiran, sawiro, khariirado iyo taatikooyinka ciidanka Suuriya ay leedahay ayuu si joogto ah ugu diri jiray Yuhuudda. Levi Eshkol, ra'iisul wasaarihii Israa'iil intii u dhaxaysay sanadihii 1963 ilaa 1969, kuna beegneed xilligii Eli Cohen uu ka howlgalayay Suuriya, waxa uu yidhi ra'iisul wasaaraha, dadaalkii uu sameeyey Eli Cohen waxa uu ku badbaadiyey nafo badan oo ka mid ah ciidamada. Xogaha uu inoo soo gudbin jiray waxa ay ahaayeen kuwo aan qiimo lagu qiyaasi karin. Waxa ayna naga saacideen guushii aan ka helnay dagaalkii Carabta 60 maalmood soconayay. Kolonel Axmed Suudani waxa uu ahaa nin aan qofna aaminin. Markii uu arkay qaabka uu Eli Cohen u dhaqmayo, waa uu nacay, wuuna iska fogeeyey. Eli Cohen waxa ay taasi ku dhalisay cabsi. Sanadkii 1964, isaga oo Eli Cohen haysato cabsida ah inuu fashilmo, ayaa waxaa loo sheegay inuu dhashay ilmihiisii saddexaad, wuxuuna si dhuumasho ah ugu safray Israa'iil. Markii uu tagay Israa'iil ayuu wakaaladda Mossad ee sirdoonka Israa'iil u sheegay in uu ka cabsi qabo inuu fashilmo, oo haddii dib ugu laabto Suuriya uu fashilmi doono. Sidaa daraaddeed waxa uu dalbaday in isaga laga daayo oo basaaska loo xilsaaro. Inkastoo dhinacyo badan uu wax ka tusay khubradii Mossad, dareensiiyeyna in howlgalkiisa fashil qarka u dhow yahay. Khubradii markii ay qiimeeyeen sida uu xaalku yahay, waxa ay Eli Cohen u sheegeen in safarkiisii ugu dambeeyay uu ku tago Israa'iil. Haa, waa sax, waa safarkiisii ugu dambeysay, mar daba ma soo laaban doono. Eli Cohen waxa uu dareensanaa khatarta ku soo food leh. Markii uu xaaskiisa u sheegay inuu tagayo, waxay ka codsatay inuu la joogo, laakiin waxa uu ku yidhi, macaan badanay qaali, goortaan mishinkaa soo dhammeeyo waan kuu soo laaban doonaa. Kadib inta nolosheena hartay ayaan wada qaybsan doonaa. Markaan kuu soo laabto weligay kaa tegi maayo. Isug intaa yarta ah aan qorshaha Suuriya u joogo soo dhammaystirayo. Waxay u sheegtay, ii soo dheeray macaan, waxaan rabaa inaan kelinimada kaa weheshado. Waxaan rabaa inaan agtaada noloshayda ku qaato. Waxa uu ugu jawaabay, haye, anaa kuu soo dheerayn doona. Sanadkii 1965 oo ku beegneed xilligii Eli Cohen uu ku soo laabtay dalka Suuriya, waxay dowladda Suuriya oo kaashanaysa khubarada Midowga Sofiyeet ay samaysay nidaam awood u leh inuu qabto mawjadaha raadiyaha ah ay basaasiintu isticmaalaan. Markii qalabkii la rakibay, khubaradii waxay sheegeen in hadda uusan jirin wax mawjad ah oo xog lagu gudbinayo, laakiin markii ay arkaan la soo socodsiin doonaan. 24 bishii koowaad sanadkii 1965 ayaa mawjadii raadiyaha ahayd ay qabatay qalabkii la keenay. Markii la raacayna, mise waa ninkii Suuriyaanka sheegan jiray ee Eli Cohen gurigiisa. Gurigaa loogu dhacay. Eli Cohen oo ku guda jira basaasnimo ayaa la arkay. Eli Cohen markii uu dareemay in la qaban rabo, ayaa waxa uu damcay inuu laqo kaniinigii loogu talagalay basaaska. Markii uu fashilmo inuu laqo, walow markasta ay geeridu xanuun badan tahay, laakiin markii aad kaniini laqdid oo tartiib u dhimatid,
iyo markii lagu daldalo way kala xanuun daran yihiin. Laakiin intuusan kiniiniga laqin ayaa laga soo gaaray, isla markiiba waa laga tuuray. Eli Cohen waa la xiray, waxaana la soo istaajiyey maxkamad, waxaana lagu xukumay dil. Wasiiraddii arrimaha dibadda ee Israa'iil, Golden Meir, ayaa waxay samaysay dadaallo lagu cafinayo Eli Cohen. Nadia Majaldi oo ah xaaskii Eli Cohenna waxa ay waraaqad u dirtay madaxweynaha Suuriya ee xilliga Amiin al-Xaafid, waxayna madaxweynaha ka codsatay in uu cafis u fidiyo ninkeeda. Laakiin madaxweyne Amiin al-Xaafid kama ogolaan arrinkaas. Dowladaha Faransiiska, Belgiumka iyo Canada waxa ay Suuriya ka codsadeen in kiiska Eli Cohen la laado, waana la laaday oo way ku guuleysteen. Laakiin taasi kama hor istaagin in la daldalo Eli Cohen. 18 bishii shanaad, Eli Cohen waxaa lagu daldalay fagaaraha Marjic caasimadda dalka Suuriya, isagoo ay daldalaadiisu daawanayeen dadweyne aad iyo aad u fara badan, kuwaasoo ku faraxsan dilka Eli Cohen maadaama uu khiyaamay waddankooda Suuriya. Daldalaadda Eli Cohen 3 maalmood ka hor waxa uu qoray waraaqadaasoo u qoray xaaskiisa, waxaana ku qornaa: xaaskaygii qaaliga ahayday, marnaba waqtigaaga yuusan ku lumin u baroorashadayda, waa qadar dhacday, xoogga saar dhisidda naftaada. Intaas ayuu inooga egyahay mowduuceeni ku saabsanaa basaaskii Eli Cohen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.